13 bishii sideedaad 2024 habeenka Cities saacadu fiidnimadii markii maraysay 1 saac iyo bar ninkan oo lagu magacaabo Jay Barkash waxa uu ka soo baxay gurigiisa isagoo markaa xilligaas dimaashidiisa guriga markaa ay joogtay u sheegay in meel halkan uu ka soo iibinayo qudaar si ay cashada ugu karsadaan oo ciyo markaa City u soo laaban doono laakiin taagsigeedii ninkan maadaama meesha dhabta uu aadayo qoyskiisa uusan u sheegin waxa uu la balansanay uu aaday gabar xiriir markaa City jacayl kala dhaxeeyay oo gabadha Cityna sabab ay u noqotay xitaa in gabi ahaanba habeenka City ay shirqoosho ninkan nafta la dhaafsiiyo ninkan waa uu soo baxay waxaan uu soo aaday goob ay ku ballamisay gabadha City xiriirka kala dhaxeeyay isaga waxa markaa City iska maadaama ninkan gabadhan aad u jeclaa islaha waqtiga wada qaadanaysaan oo waa markaa City is arkaysan oo aragtida uu ku faraxsanay maadaama ay meel kale ku maqnayd goob kale oo dib ay u soo laabatay laakiin habeenka City gabadhan waxa ay qorsheysatay maadaama ninkan ay karaahiyesatay in gabi ahaanba nolosha markaa City ay dhaafiso oo waxa markaa City ay u soo kaxaysatay nin ina adeer ay yihiin iyo walaalkeed in markaa City qorshahaniti ay fuliyaan oo ninkaniti qudha markaa City loo dhameeyo xiriirka ka dhaxeeyay ninka iyo gabadha hadii markaa City aan fiirino ninkan dhalinyarada ee la dilay wax lagu magacaabo Jay Barkash waxa uu iska ahaa nin injineer ay xubnaha qoyskiisa markaa la noolay iyo sidoo kale gabadha baashidiisa guriga markaa kula noolayd sida caadiga nolosha qof iska shaqaysta oo reerkiisana markaa City waxa uu garabka geysan kara ka geysta dadka City caadiga noloshooda wata markaa City iska ahaa ninkan iyo gabadhan waxa ay isku barteen gabadhan waxa markaa City dhibaatada u geysatay ninkan lagu magacaabo Lalita Jay Barkashna wiilkan dhalinyarada injineerka qorsheysay in markaa City ay u maleegto fal lagu qarajinayo labadan qof xiriirka ka dhaxeeyay waxa uu ahaa gabadhan Lalita lagu magacaabo falkan dilka qorshiisa maleegtay waxa dumaashi ay la ahayd ninkan la dilay Jay Barkash in adeerkiis waxa markaa City isku barteena ninkan waxa markaa is arki jireen in adeerkiis oo gabadhanaytina markaa guriga uu soo kale halka City waa is arki jireen sidaas ay markaa City isku barteen telefoonada kala qaateen xiriir markaa City dhaxmaray waqti markaa City kala duwanay is arkeena dhaxdooda waxa ka bilowday xiriirkooda waxa markaa City iska ahaa mid waqtidiisa ugu horeeyay marka la fiiriyo iska hagaagsan oo dhibaato markaa City aysan isku qabin laba qof oo kale isku faraxsan markaa ay ahaayeen xilligaas maadaama gabadha dhankeeda marka la fiiriyo kale ay daneynaysay in uu wax sii barato waxa ay ku tiri xilliyadoona markaa City kamid ah gobol kale yaan rabaa in markaa City aan aado halka City xogaha muddo ku sugnaado oo waxbarasho aan ku qaadanayo imtixaan halka City aan ku gali doono wiilku walow uusan xogaha jeclaysanaynin oo qof markaa uu qof jecel yahay inuu isku magaalo ay ku noolaadaan uu jecel yahay okay waa uu ku raacay gabadhina markaa City waa ay baxday safarkeedii markaa City iska aaday wiilkuna shaqadiisii markaa City iska sii watay injineernimada ah wiilkan maadaama gabadha uu aad u jeclaa isaga dhankiisa xogaha jacaylka uu ku badnaa waxa markaa uu sameyn jiray waqtiyo badan inuu telefoon kula hadlo video call sidoo kale markaa City uu ku waco isagoo mar walbana u muujinayo xiisaha gabadha markaa City uu qabo laakiin gabadha iyada dhankeeda waxa markaa City u muuqatay in sida ninkan jacaylka ugu badan yahay ugu waalanay iyada dhankeeda markaa City wax badan inaysan jirin waxa dhacday xilli marka halka City ay tagtay gobolka City waxa ay bilowday in ninkan lacago si joogta markaa City u soo weydiiso lacag inay u baahan tahay waxyaabo ay ku samaysanayso ninkanna maadaama markaa City uu xogaha gabadha jeclay daneyn fara badan markaa uu muujinayo waxa uu sameyn jiray in waxyaabaha ay u baahato idil gabi ahaanba markaa isagoo waxba aan weydiinin war aan ka gelin iyo markaa wixii u baahataba uu u diri jiray sidaas ay markaa u ahayd xiriirkooda oo lacago badan markaa uu ku qarash gareynayo uu u diraayay iyagoo dhanka kalena koolashoodi iska wato in telefoonka waqtiyo badan ay ku hadlaan marmar video call ay ku wada hadlaan waxa dhacday in ayagoo markaa waqtiyadooda kamid ah telefoonka video call kula wada hadlaya ya goobta gabadhaniti markaa ay ku sugnayd waxa dhacday in uu nin markaa City la joogay guriga ninkan gabadha markaa City jeclaa Jay Barkash waxa markaa gabadha uu weydiiyay ninka City guriga kula joogo oo yahay maadaama isaga markaa uu ku ogaay gabar waxbarasho aaday imtixaanna markaa City soo galayso oo daraasadeeda halka City markay ka dhameysato soo laaban doonto
waxa uu weydiiyey sababta ninka City guriga marka City u dhex joogo wax jawaab cad maysan siinin xilliga City shibiye marka City ka tiri oo way u maldahada hadalada way isku yara buuqeen marka City tiri niyow haddii adi marka City aad ninkan kuna naadayso xogtiisa ina ogaato ani ina igu kalsoonaataa fiican haddaadan igu kalsooneen xiriir sabab aanu sii wadi karno meesha marka City ma taalo hadalka meesha City adag markii uu gaaray ninkan marka Jay Barkash injineerkana marka City ahaa oo ka gaabsaday oo hadalka City mowduuca City waa iska dhaafay xilligaas waxa marka City dhacday in xoogaha marar kale isqa qabsadeen oo gabadhu heer waxa marka City ay gaartaba xilliyadiisa marka xilliyada kamid ah in gabadha wiilka marka City hooyadiis ay wacdo oo ay ku tiraari xitaa inankaaga xiriiraya marka City naga dhaxeeyay laakiin waxay u muuqataa inaan isfahmi karin oo gibi ahaanba marka City xitaa guur aan qorsheynayna dib marka City aan kaga laabtay waxay ku tiri gabadha hooyada wiilka marka City dhashay u sheeg wiilkaaga ma doonayo marka City inaan guursado gibi ahaanba guurkii waa ka laabtay hooyada hadalka City xogaha kuma aysan farxin laakiin waxay u sheegtay wiilkeeda waxay ku tiri waxay la soo hadashay gabadhii xiriirka marka City kala dhaxeeyay ayadoo ii sheegayso mushkilada dhexdiina marka inay taagan yihiin isfaham waa ah sababta waxaan marka City ii sheegtana in gibi ahaanba marka aysan dooneynin wax guura marka City inay kula gasho oo ay igu tiriba u sheeg wiilkaaga hooyadii marka City dhees wiilkaaga u sheeg yaa marka City la igu dhahay wax guura ma doonayay gabadha marka City kugu dhahday wiilku waxa marka hooyadiis uu ku yiri waxa ay hooyadana hadalkaas maadaama ay maqashana waxa uu marka City wiilku ugu jawaabay oo ay marka City maadaama hooyadiis hadalka marka ay dhees u dhageystay waxa uu dhahay hooyo ani gabadhanaytii waxa iga galay qarash badan marka City iga galay oo laba go'aan iyo marka City sheegtay uu dhahay ima in aan lacagteedii ka helo oo aan ku qarash gareeyay iyo in marka City aan guursado labada City uu mid bis ya ku qanci kara in lacagayga dib ay igu soo celiso maadaama guurkayga ay diideyso ama wada kale inaysan furnayn oo ah kaliya marka City ina isguursano xilliga City ninkan falka dilka marka City loo geystay ee Jay Barkash lagu magacaabo wiilkan injineerka ah waxa uu sameeyay muuqaalo iyo sawirro marka City ay wada galeen oo xusuus aan waxyaabo marka City ay ku jireen in uu marka City maadaama waalidkeed gabadha marka address uu ka hayay waxa dhacday in waalidkii marka gabadha dhalay uu u diray uu dhahay gabadhiina waa kana waqtiga marka City waxba uu sheegay waqtiga wada joognaa sawiraantas marka maadaama uu dirayna waxa uu sii raaciyay fariin ah in uu doonayo gabadha marka City inuu guursado handadaado kala marka ninkan waxa maadaama uu qarashaad ku bixiyay gabadha badan waxa marka City uu aaminayba in gabadhan laba mid ay tahay bis inuu helay in lacagta marka City loo soo celiyay kaliya xilligaas xubnaha qoyska dib iyo marka City isugu laabteen waxa dhacday in ay dhaheen haye way hadii marka City aad doonayso go'aankaagan uu yahay in gabadheena marka ay guursato gabadhii qoyska ay ka dhalatay waxa ay ku dhaheen okay gabadha maadaama marka City aad ku indha adeegayso inaad guursato le marka City inay ku furan tahay way ku aqbaleen sidii marka City isaga uu rabay oo waxay dhaheen xubnaha qoyskaaga ayaa marka City u imaan doonaa si guurka marka City aan kaga sii wada hadalno xilliga City waxa ahayd 2023 dhamadkeedii marka City ahayd sidii marka City xiriirka xoogaha wali marka City waa sii jiray laakiin dhanka gabadha ninkan maadaama ay dhankeeda jacayl badan sida u muuqato marka City isin u qabin oo isaga dhankiisa kaliya marka City uu ka waalanay sidoo kalena uu ku rikaatay ima lacagtii uu ku qarash gareeyo idil inuu u soo celiyo ama inay isguursadaan oo xalka marka City inuu yahay gabadhu waxa marka City ay go'aan ku gaartaba in ninkan ay qorshe marka City u maleegto in adeerkeed iyo xilliga City marka la tashatay iyadoona cussi ka dalbanayso in ninkan gibi ahaanba nolosha la dhaafiyo oo dudub nolosheeda marka City sida uu kaga baxo in adeerkii fikirkii marka City la qaatay gabadhi maadaama gobol kalena xilliga City marka ay jirtay waxay sameysay in adeerkeed iyo gabadhu waxa isla qorsheeyeen ninkan maadaama si qasab guurka marka sida muuqato uu kaga keensaday oo wax qanaaco dhanka gabadha isaga labadaba marka City ku wada qanacsiin guurkan isnayn in adeerkii iyo gabadhi si ninkan noloshiisa ay isu dhaafiyaanba waxa ay istuseen in gabadhu xoogaha mar kale ay xaaladda u dejiso oo xaaladda yara xoogaha marka City ay dabciso sideedii hore inay u tahay oo kale marka City isaga dhigto si uu u aamino marka kadibna ay
qorshahaniti ugu maleegaan oo nolosha sidaasiti marka ay ku dhaafiyaan ninkan gabadha markaasiti waa ay soo wacday waxay ku tiri iga raali haw wixii dhac markaasiti iyadoo ka raali garaynayso ninkan isagana markaa maadaama iska nin jacayl haye uu ahaa waxa uu dhahay sidoo kale isagana markaa waa uu raali geliyey waxa uu ku dhahay aniga markaasiti dhinkii raali gelin markaasiti inuu ka warsanaya maadaama sawiraan iyo waxyaabo iyaga ay keedsadeen iyo familkii markaasiti uu la wadaagay isagoona cadaadis sidoo kale markaa qoyska dhahayo kale gabadhiina waxaanayti markaa qarashada iga baxay oo waxaan doonaya inaan qarashkaasiti aan ii soo celiso ama aan guursado oo culays familka markaa uu saaray isaga dhankiisa raali gelin iyo markaasiti ka bixiyey oo gabadhi uu raali garaynayo gabadhina waxa markaa maadaama qorshe ay maaganayd in ninkaniti ay xaaladda u dejiso sidaasitina marka ay kaga faa'iidaysato oo nolosha gebi ahaan marka ay dhaafsay ku tiri okay waayahay waa heshiinaynaa waana soo laabanayaa gobolka ayaa markaasiti ku soo laabanaya maadaama gobol kale markaasiti ay jirta xilligaas waxay ku tiri waa imaanaya waa is arki doonaa markaasiti xaaladdu mid wax caadiya markaasiti isaga muuqatay bilihii ugu horreeyey ee 2024 waa isoo laabatay gobolkii markaa ku soo laabatay gabadhan waxa markaa ay qorsheysay sida qaabka marka ninkaniti ugu dhameyn karta inay tahay maadaama hadda xaaladaha ay dejisay uusan ka shakinaynin dhankeeda in markaasiti maadaama hore go'aano ay u qaadatay xitaa guurkaaga mar raba ay tiri waxa ay go'aana markaasiti iyada dhankeeda ay u muuqdeen gabadha waxa ay qorsheysatay in qaabka ninkaniti ay ku dhameyn karta ay tahay in ay goob markaasiti ku ballamiso waxaana marka ay go'aansadeen goob hotel ah oo magaaladooda markaasiti ku yaala gabadhan ina adeerkeed iyo walaalkeed oo qorshaha markaasiti la fulin doona badilka ah in ay goob markaasiti ay hotel ay indhaysteen hotelkaasitina ay dhaheen okay goobtana markaasiti ku fulin karnaa falkan gabadha waxaana markaasiti dhacday habeenkaas oo 13 bishii 8 2024 markaasiti ay taariikhdu ku beeganayd xilli fiidnimo ah in ay ku ballameen oo ay tiri hotel halkaasiti yaa markaasiti jooga ii imaw marka halkaas isku arkeena okay wiilkii xubnaha qoyskiisa uma uusan sheegin oo dumaashadiisa xilligaasiti guriga joogtay waxa uu kaga soo tegey meel halkaniti qudaar nooga soo iibina cashada markaasiti aan ku sii karsanaba waa on soo laabanaya si degdeg ah markaasiti u soo laabanaya waa uu baxay xilligaas waxa uu tegey gabadhii markii goobta markaasiti isku arkeen wax yar ay wada joogeen waxay ku dhahday in adeerkeedna hotelkii qol markaasiti magaciisa ku kireeyay oo waxa ay qorsheysteen qolkaasiti marka inay tagto halkaasiti marka ay geyso ninkaniti oo halkaa marka loogu dhameeyo ha dhacday xilli yar markay wada joogeen waxay ku tiri gabadha okay si aan waqti badan u sii wada hadalno waxa markaasiti goobtaniti waxa igala munaasibsan qol in adeerkii markaasiti kireeyay oo degan meesha markaasiti teginay ku tiri oo halkaasiti marka ku wada hadleena wiilkii maadaama daacad ninkaniti iska ahaana okay waayo dhaay waa uu soo raacay qolkii markaasiti soo wada aadeen oo halkaasiti marka si ay ugu sii wada hadlaan oo waqti ay wada qaataan gabadha marka ay qolka keentay si farsamaysan ninkaniti fariin iyo si hoose marka walaalkeed ugu dirtay in adeerka maadaama uu sii ogaay falkaniti walaalkeed iyo markaasiti ku tiri ninka waa uu yimid xilligaasna walaalkeed waa uu soo baxay waxaana ninkaniti goobta ku wada dilay walaalkeed iyo in adeerkeed yaa markaasiti falka dilkaniti geystay oo ninkaniti in ay qaarajiyaan maadaama sawiraan gabadha uu ka hayay oo familki xitaa marka hore uu diray guurka uu ka dalbanayay uu dhahay waxyaabahan dhan ay gabadhan sawiraantan inaa ka hayay gabadhin in lacag iyo markaasiti iga qaadatay waxaan doonayaa oo qoyska gabadha uu ku cadaadiyay ninkaniti in gabadha markaasiti loo guuriyo ama lacagta loo soo celiyo gabadha iyo walaalkeedba waxay isla qorsheeyeen in ninkaniti ay u dhameeyaan si gabadhana xogaa sharafteeda u ilaalsato dalka city Hindiya ay kula nooshahay waxa dhacday ninkii in midi markaasiti ay ku jarjaraan waxay sameeyeen in dhaawac badan ay gaarsiiyaan ninka gabadhan walaalkeed iyo in adeerkeed sidoo kalena markaa madaxa ay ka jaraan qaabkii sida ay ku qorin karaanna waxa ay la noqotay in ay jarjaraan ninkaniti oo jawaan markaasiti ay ku ridaan jawaan iyo markaasiti ku rideen oo xilligaas saasi markaa yeeleen qoortii inay ka jiraan jarjaraan hilibkiisii iyo xubnaha markaa jirkiisa in ay sidoo kale markaa ay ku ridaan jawaan waxa markaasiti xilli ay isleeyihiin hotelka waa uu degan yahay jawigiisa waa aqaadi kartaan yaa waxa dhacday baskilkan rooriyaanka kale iyo markaasiti jawaankii intay soo dul saareen iyo ku soo qaadeen xilligaas kaamiradu marka
ay qabatana wejigooda xoogaa si aada looma aqoonsan karin laakiin inay wax wadeen uun marka city waa la dareemaya oo baaskiilad markaa waxa ay sameeyeen in meel aanan aad ugu fogeyn ilaa iyo 100 mitir ah meesha goobta ay ku dileen hotelka magaaladoodina markaa city ku yaalay in goobta city halkaa meedka iska soo dhigaan oo ay ka soo tagaan waxa dhacday habeenka city maadaama uusan soo laabanin ninkaniti injineerka ah ee qoyskiisa kaga tegay cashaya markaa qudaara meeshaan nooga soo qaban cashada ku karsano qoyska maadaama ay waceen telefonka aan laga qabanaynin waxa ay wargeliyeen booliskii markaa city wargeliyeen booliska waxa stationka ay tageen gobolka markaa city ay ku noolaayeen xubnaha qoyskaniti ee wiilka la dilay 4 saac iyo bar habeenimo waqti markaa city ay ku aadan tahay booliska caddeyntas maadaama ay hayeen oo qof in la raadinayo markaa city diiwaankooda ku jiray haddana waxa soo dhacday maalinimada city subaxdeedii in dadku markaa city ay ku soo wargeliyaan in jawaan wadada markaa city la soo dhigay qarmoon markaa city ka soo baxay booliska loo sheegay dadkuna waxa ay wargeliyeen booliska u sheegeen marka jawaanka city ay fureen in ay ugu tagaan xubno qof markaa city jarjaran oo qoortiisana markaa city la jaray cidda markaa la tusay boolisku marka cadeymaha city ay raadiyeen sidoo kalena habeenka city qof loo soo sheegay in la weysan yahay waadi goobkii iyo waxyaabihii markaa city tilmaamihii iyo booliska cadeymankii ay heli kareen waxyaabahaas oo dhan markaa city isku aruuriyeen waxa dhacday in xubnaha qoyskana markaa booliska ay wareysteen qaab tilmaameedka qofka markaa city uu lahaa si marka cadeymanna booliska ay u sii xaqiijiyaan in qofkaniti subaxnimada city ay arkeen 14 bishii 8 2024 in uu yahay qofka markaa city la raadinayo oo habeenka cityna maadaama 13 bishii 8 2024 abaar 4 saac iyo bar habeenimo qof loo soo sheegay in la waayay boolisku waxa ay tuseen xubnaha qoyska iyo markaa city in ay aqoonsan karaan xubnaha qoysku markay arkeen wejiga way aqoonsadeen in wiilkoodii markaa city la dilay qofkan la jarjaray isaga markaa uu yahay qoortana markaa city laga jaray boolisku si markaa city mas'uuliyadan qof dusha ay uga saaraan waxa dhacday cadeymanka in ay inta city ka sii baaraan oo xilligaasna waxa baaritaan markaa booliska ay markaa ay noqotay in ay raadiyaan wiilkaniti telefonkiisa in la baaro oo dadkii waqtiyada city ugu dambeeyay uu la hadlayay habeenka city dadkii uu la balansanay in baaritaanada city oo dhan boolisku dib markaa city u baaraan qofka ugu badan ee markaa city ninkan isla hadleen la dilana waxa uu ahaa gabadhii xiriirka markaa city kala dhaxeeyay ee falkan shirqolka u maleegtay boolisku waxa ay soo raadiyeen gabadhaniti markaa soo raadiyeen oo wiilka xiriirka la lahayd laakiin guriga waxa ay ugu tageen in dibi ahaanba markaa qofna aysan joogin oo guriga waxa iska guri xiran qofna maysan ugu taginba oo xubnaha qoyska iyo sidoo kale gabadhuba waa ay baxsadeen oo meesha goobta markaa city isaga baxsadeen boolisku si cadeymo dheeri ay u sii raadiyaan waxa ay sameeyeen habeenka city maadaama tuhun uu soo galay gabadhaniti in qoyska iyadii markaa qoyskeeda isla baxsadeen falkaniti markuu dhaca kadib qofka ugu dambeeyay inta badan markaa city uu la hadlayay iyo maalmaha city ka horeeyay koolka ugu badan iyada ay ahayd ninkaniti la dilay telefonkiisa marka la baaray booliska ay ku arkeen booliska tuhuna markaa city sii gashay waxa ay sameeyeen in GPS markaa city ay ku baaraan oo ay isweydiiyaan gabadhan numberkeeda habeenka city 13 bishii 8 2024 xaguu markaa city ka daarnaa boolisku goobta markaa loogu tilmaamay in habeenka telefonka uu ka daarnaa waxay ahayd in goobta ninkaniti lagu dilay hotelka markaa gabadha ay joogtay gabadha markaa city waxa cadaatay in ninkaniti ay habeenka city uu iyada dhankeeda uu soo aaday oo goobta dilka markaa city loo geystay iyo telefonkeeda markaa city uu ka agdhawaa waxyaabaha booliska cadeymanka kale sii raadiyeenna waxay ahayd habeenka city hoteeladaasi dadka kireystay in magacyadooda markaa city dib ay u fiiriyaan kaamiradaha iyo wax markaa city marka ay daba galeenba qolka ay ka shakiyeen iyo markaa city waxay dhaheen in habeenka city markaa qofkii qolka city kireystay meesha receptionka markaa hotelka la weydiiyo magaca loo sheegay boolisku markay dabagal ku sameeyeen ay raadiyeen dadka deriskana sidoo kale markaa city iyo waxyaaba meelaha cadeymanka ay ka heli karaan dhan ay baareen magaca habeenka city qolka wiilkan ninkan dhalinyarada lagu dhex dilay magaca lagu kireystay waxa uu ahaa gabadhan
falka dilka qorshaha markaasaytii u maleegtay in adeerkeed iyo qolka markaasaytii kiriyey boolisku baaritaan ayay markaasaytii ku sameeyeen oo waxa markii dambe u suurta gashay baaritaankooda in ninkaasaytii in adeerka u ahaa gabadhanayti markaa falkanayti qorshaha u maleegtay oo isaga iyo gabadha walaalkeed ninkaasaytii ay ku dileen maskaxda mas'uuliyadda iyo isla qorsheeyeen boolisku ninkaasaytii marka ay soo qabteen waxa ay weydiiyeen mas'uuliyadaha iyo waxyaabaha markaasaytii ka dambeeyay boolisku waxa markaasaytii uu sheegay in gabadhanayti ninkan in adeerka la ahay gabadhaasaytii waxa uu sheegay booliska uu ku dhahay gabadhanayti ninkan ma doonin camal oo iyada markaasaytii dhankeeda culaysadii markaa ka tirsanaysay oo xitaa waxaa jirta in hooyadeed ay u sheegtay oo hooyada markaasaytii wiilka dhashay ay ku tiri gabadhanayti ma doonayo wiilkaagana isguursano u sheeg ha iga sabro laakiin isaga dhankiisa maadaama uu ka sabri waayey anigay markaasaytii soo wacday oo ninkanayti in adeerka gabadha la ahaa uu dhahay falkanayti qorshahan sidaasaytii markaa ku maleegnay waxa dhacday in boolisku baaritaan iyo raadin ay ku sii wadaan qoyska iyo sidoo kale gabadhanayti markaa meesha ay ku dambeeyaan waxa dhacday gacanta marka lagu soo dhigay boolisku in gabadhuna markaasaytii u sheegtay oo ay ku tiriba mas'uuliyadanayti anigaa ka dambeeyey oo waxa markaasaytii dilay walaalkay iyo adeerkii ayaa markaasaytii mas'uuliyadda ninkanayti dilka loogu sameey lahaa anna waa la qorsheeyey maadaama iyadana marka ay dhibsanaysaasay markaa ku tiri ninkanayti aysan rabin iyadana markaasaytii uu isku qasbaayeen boolisku waxa marka ay noqotay caddeyn markaasaytii gabadhanayti qirashadeeda afka marka ay ka qiratay in xukunkooda maxkamad markaasaytii ay wajahaan oo xabsina markaa sidaasaytii loogu xukumo